السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى خالقنا أبوري إن له إن مامولا، والله سبحانه وتعالى كليديا المنعم الحقيقي ونعميها خلقك دبطة وحلالي وحا دومها هي خلقك ونعموين هيستان إلهي با سبحانه وتعالى بحيوسي. وما بكم من نعمة فمن الله، وحلالي وحايدن كسوغان النعموين إلهي كويدين مقضاء وادقران إنسان يكويدين كقرصون أماد موقنتهين إلهي حقي ساي كتمي. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلهي نعموين كيسا هداد اسكود ديدان هداد تيسان تراكوبكم أقاري كرتان، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إلهي بايدن هويين نعموين كيسا يضع أماله كوا موقضى يكوا قرصون وإذا نركهين. الله سبحانه وتعالى أدومها سيدا ugu nicmeeyay wuxuu xaq u leeyahay oo mudan yahay adoomuhu ilaahay nicamkaas inay uga mahadnaqaan. shukru nicmo markay culimadu qeexayaan waxay yiraahdaan wa idhaaru الnicmati والثناء بها وعمل طاعة لأجلها. ونعمة أدونك إنو موتشيه وبمعنى آن الضفرين. وما بنعمة ربك فحدث. إن الله سبحانه وتعالى سيه وكو أمانه وإلهي وكو حسما قعيدين سوى أكسن يصفات كيسا لما يسكتران. وإلهي سبحانه وتعالى عمل صالحا نعموين كيسا وكقت جوابه. إلهي الرحمة ديسا إيا النعمة ديسا كلوحا كميدة إن يضو حقه إليه إن لو مهدنقه هدنا مهدنق الله مهدنقه وكدقى عباده أدومها أبال وناكسن وكسينيه. وإلهي درجو ينكروا وقاضي ميزانك حسنات كان قيامها وصاريه. الدنيا دو دي آخرة دو دبا وكبرا كينيه. إلهي با سبحانه وتعالى أدومها أمري إن يوم هدنقان. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يحسوا واندين حسي دونايه إما هدنقا ونعموين كيغا هدفرنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إلهي النعمة دي بحسوسية وحوري وحا حلاشة وناكسنة واحترك لان كو أرزاقني عنا استعمالات كي كلا حلاشة أنا والله مت الله يدين سيينا وما هدنقا. taasina waxay tilmaamaysaa shukrullahi calaa nicamihi inuu yahay cibaado mar hadduu ilaahay subxaana watacaala ina amray. waxaa kaloo ilaahay uu inoo sheegay ballanqaad aada iyo aada u qiimo badan oo isna tilmaamaya mahadnaqa ilaahay loo mahadnaqaa inuu yahay cibaado addoonka ilaahay u dhoweynayso oo miisaanka xasanaadka loo saari doono yowma alqiyaama ajarkeedana ilaahay agtiisa uu ka heli doono. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هداد إما هدنقضاء النعم كان يدين كردنا ندين زيادة. نعمة الدين هداد إلهي وقام هدنقضاء. نعمة إيمانك، نعمة عبادتك، نعمة علمك، نعمة عملك صالحة. إلهي وحكوب اللنقاضين وكو كردنا وكو زيادين. هداد نعمة إلهي وقام هدنقضاء ويدنا إلهي سبحانه وتعالى نعمة وكاسو لنيه. nicamka adduunyana waa sidaas oo kale. allaha ku siiyey haddaad ku ammaanto oo aada muujiso aanad qarin oo aanad dafirin oo camal saalixaad kaga jawaabto nicmada caafimaadka, nicmada awlaadda, nicmada arsaaqda noocyadeeda kala duwan, nicmada caqliga iyo maskaxda, nicmada badqabka xubnaha. إلهي سبحانه وتعالى وكو زيادين وكو كردين.
hada min barakati shukr illahi calaa nicamih mahadnaqa ilaahay nicmooyinkiisa looga mahadnaqo barakooyinka laga helo fawaa'idda uu leeyahay iyo midhaha laga goosto mid kamida weeye walaalayaal nicmada farxadda aynu ku farxayno iyo jacaylka aynu jecel lahay yaanu ina ilowsiinin allaha ina siiyey inaynu xusuusnaano oo mar walba aynu mahadnaqno nicmaduna yaanay sababu noqon inaynu ilaahay subxaana wa tacaala kaga fogaano daaru laakhira oo halka nicmada dhabta ay taallana yaanay naga mashquulin oo naga jeedinin aqulu qawli hada waastaqfiru allaha lii walakum alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacaala loo mahadnaqo waxaa ka mida muqaabalat الnicami biاlacmaali الsaalixa nicamka ilaahay uu ku siiyey inaad qaabil siiso acmaal wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay oo ilaahay uu ku farxo oo adigana ilaahay subxaana wa tacaala kuu dhoweysa faالصalaaةu shukru wالصiyaamu shukru wالsadaqaةu shukru wالdacwaةu shukru watacliimu اlcilmi shukru wakulu camali صaalixi shukru lilah salaadan aad tukanaysaa waa mahadnaq waa inaad dareento inay tahay mahadnaq ilaahay nicamkiisa aad uga mahadnaqayso soomku waa mahadnaq sadaqadu waa mahadnaq sakada aad bixinaysaa waa mahadnaq nicmat lmaal ilaahay aad uga mahadnaqayso kulu camali oo saalixin qur-aan aad akhrido dikri iyo duco samafal iyo ixsaan wanaagaad dadka farto iyo cilmi aad barto acmaasha saalixa dhammaanteedba waa mahadnaq ilaahay subxaana wa tacaala aada u mahadnaqayso haddii ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa uu ku huwiyo kuu ballaadhiyo waxaa kula gudboonoo mahadnaqa ka mid ah inaad adiguna acmaasha saalixa aad kordhiso oo mar kastoo nicma ay kuu korodho xanuun baad ka cabanayso ilaahay baa caafimaad ku siiyey waa nicma waad baqanayso ilaahay baa amni ku siiyey masaa'il baad jahli kaga sugnayd oo ilaahay baa kuu furoo ku baray cibaadadaada marka hore yarayd ilaahay baa ku waafajiyey cibaadada inaad kordhiso oo iimaankaagu uu ziyaado kor u kaco khushuucdaaduna ay badato ilaahay baa ku waafajiyey alixsaan ila alkhalq khalqiga inaad u samafasho waalidkaana inaad qof baara oo si fiican ula dhaqmaayo aada noqoto waa inay nicmooyinkaasi sababku ugu noqdaan an tasdaada cibaadatan tuqaribuka ila allah inaad kororhsato cibaado ilaahay kuu dhoweysa nicamku ilaahay uu ku siiyey hadday sababaan inay cibaadadaadu yaraato fa anta lam tashkur illaaha calaa hadihi nicma ilahay nicmadaasi ugamaad mahadnaqin nabiy llaahi daawuud calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baa ka warramay inuu siiyey nicmooyin badan waxyaabo badanna uu sakhiray uu fududeeyey culuumna inuu baray dadka kale wakhtigiisii aanay aqoon ilahay isagoo la hadlay wuxu uhi icmaluu aala daawuuda shukra daawuudow isaga laftiisaa looga jeedaa waxaa bitabacna soo gelaya duriyadiisii iyo dadkii raacay camal wanaagsan oo mahadnaq ilaahaya sameeya fasama allahu alcamal asaalixa shukra lilahi calaa nicamih camalkii wanaagsana ilahay wuxuu ku magacaabay oo ugu yeedhay inuu yahay mahadnaq addoonku ilaahay nicamkiisa uga mahadnaqayo nabiy llaahi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam sida ay warisay caaisha radia allahu canha iyo saxaabo kaleba walxadiidu fi lbukhaariyi wa muslim kaana yaqumu min alleyl xataa tatafatara qadamaah habeenkiibuu u kici jiray salaatuleyl ilaa ay lugihiisu intay bararaan marka dambena ay qarxaan o ay dilaacaan faqiila lahu atasnacu dalika waqad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taahar atatakallafu waqad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taahar ma sidaasaad yeelaysaa riwaayad kale miyaad iskalifaysaa
iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo kii dambeba uu ku dhaafay. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ku jawaabay? afalaa uxibu an akuna cabdan shakuura, afalaa akunu cabdan shakuura fi riwaaya, hadduu ilaahay igu nicmeeyey binicmati gufraani dunuub, nicmadaa inuu ilaahay dembiyada iga dhaafay oo wixii hore iga dhacayna ilaahay iga dhaafay, waxa soo socdana ilaahay uu iga ilaalinayo, miyaanay anigana ila gudboonayn inaan nicmadaa ilaahay uga mahadnaqo oo aan ilaahay ugu mahadnaqo bilcamali الصaalix oo faralladu ay horeeyaan, sunnayaasha oo salaatuleylku ay ka mid tahayna ay ka tirsan yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu nicmeeyey wuxuu faray inay nicmadaada sabab ugu noqoto inay camal saalixa oo ilaahay u dhoweeya oo iimaankooda kordhiya oo miisaanka xasanaadka loo saaro iyaguna inay kororsadaan. yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin. maryama in allaha اstafaaki waطaharaki waاstafaaki calى nisaaءi اlcaalamiin. ilaahay baa maryamay ku doortay oo xumaan kaa ilaaliyey oo dumarka caalamka ee waktigaaga jooga kaa doortay oo kaa fadilay. soo nicmo weyn maaha taas? ma waxaa la yidhi darajaad gaadhee cibaadaadka iska daa oo waxba ha isku hawlin sida kuwa zanaadiqadii ay yidhaahdaan. darajaa jirta la gaadho oo ilaahay agtiisa laga gaadho dabeetana cibaadaadkuba ay kaa dhacayaan, ma jirto taas. hadihi zandaqa suri ibnu kathiir raximah llahu tacala fi tafsiirih, wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. intay naftu kugu jirta ilaahay caabud buu ihi ilaahay subxana wa tacaala. walmaqsuudu bilyaqiin huna almowt, ilaa ay geeridu ku imanayso. rasuulkaa fasiro ihi ama abu salama faqad jaahu lyaqiin, markuu abu salama geeriyooday. haddii cid darajo gaadhay ee cibaada ka dhacayso, nebi maxamed calayhi salatu salaam maxay uga dhici weyday? darajada ilaahay agtiisa aad ku yeelataa haddii ay tahay darajo runa oo saxa, waa inay sababto in aad ilaahay subxaana wa tacaala mahadnaqiisa oo camalka saalixa uu ka mid yahay inaad kordhiso. maryama ilaahay markuu u sheegay inuu doortay lama odhan darajaad gaadhay cibaadadka iska daa, kordhi baa lidhi. yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin. ilaahay adeec baa la yidhi oo amarkiisa qaado, wuxuu kuu diidayna ka fogow. waa shukrun, waa mahadnaq ilaahay nicmadaad uga mahadnaqayso. ilaahay subxaana wa tacaala u tuko, u rukuuco, u sujuud. salaadu waa min acdam shukr, mahadnaqa ilaahay loo mahadnaqo kuwiisa u waaweyn ayay salaaddu ay ka mid tahay. waxaynu aragnaa walaalayaal dad fara badan oo ilaahay u nicmeeyey nicmo diineed iyo mid adduunyaba, oo halkii nicmadaasi ay u kordhi lahayd inay ilaahay ku xidhmaan oo quluubtooda ilaahay ay ku xidhanto, iimaan ay ziyaadsadaan oo cibaadaadka ay kordhiyaan, iyaga oo ilaahay nicmadaasi uga mahadnaqayo u xusuusan nicmadii ay fitnaynayso, ilaahay ay ka fogeynayso, cibaadadii ay ka kaxaynayso, ama cibaadadoodu inay yaraato ay sabab u noqonayso, oo ilaahay intii ay markii hore u jireen ilaahay ay uga sii fogaanayaan, oo nicmadii sabab ay ugu noqonayso inay dembaabaan, oo ilaahay nicmadiisii ay ku qaabilaan oy ka horgeeyaan, allihii u nicmeeyey inay caasiyaan oo amarkiisa ay khilaafaan. fa haadihi laysat nicma wainamaa hiya niqma. taasi nicmo maaha. waxa ilaahay ilowsiinaya addoonkae rabbi ka fogeynaye u sahay qaadashada aakhiro ka mashquulinaya. waana wax ilaahay addoonka uu siiyey inuu ku imtixaamo, imtixaankiina uu ku dhacay. ama macaasi iyo dembiye hore uu ku jiray ayaa sababay in la siiyo nicmooyinkaasi adduunyo si loogu ciqaabo ay u noqdaan kuwa ilaahay subxana wa tacaala ka fogeeya. wa min makri illaahi subxaana wa tacaala wa kaydih, ilaahay subxaana wa tacaala dhakritaankiisa iyo ciqaab si qarsoon ugu socda addoonkuna uu isleeyahay waa nicmo weeyaan taasi. nicamka ilaahayna siiyey addoomaha ilaahay waa inuga faa'iidaysano. allaha subxaana wa tacaala ina siiyey inaynu ku garanno oo qalbigeennu uu kusii xidhmo oo xusitaankiisa aynu farabadinno iyo ammaanitaankiisa, oo cibaadaadka iyo acmaasha saalixa aynu kordhinno. markaasaa ilaahay adduunyadana inoogu ziyaadinaya, aakhirana ay noqonaysaa nicmadii mid ina anfacday
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لشكر نعمك، اللهم وفقنا لشكر نعمك، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.